wasiirro iyo ganacsato ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya oo shalay galabnimadii soo gaaray magaalada Berbera ee xarunta gobolka Saaxil ayaa saakaarooriyadii hore booqday dekedda magaalada Berbera waxaana dekedda magaalada Berbera ku soo dhaweeyay mareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi iyo maayarka degmada Berbera Cabdishakuur Maxamuud Xasan Cidin dhanka kalena wafdigani ayaa waxa qayb ka ahaa wasiirka biyaha ee Somaliland Saleebaan Cali Kore ugu horreeyna waxa halkaasi ka hadlay mareeyaha dekedaha Somaliland Siciid Xasan Cabdilaahi isla markaasina ka sheekeeyay xiriirka qotada dheer ee ka wada dhaxeeya dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya iyo Somaliland aad muddo dheer baan ugu qaadatay sidii aan gatewayga Soomaaliyeed ee qowmiyadda Soomaalidu ku nooshahay inay albaab u noqoto dalka Itoobiya waa hawl adag oo aan ku shaqeynay oo lagu hogaaminay madaxweynaha Jamhuuriyadda Somaliland isagoo mar walba u taameeyay isdhexgalka labada dal alxamdulillah rabbil caalamiin sharaf dheeraad ay noo tahay inaan wada shaqeyno oo kororkaan ka wada shaqeynana waa mid muhiim ah 2020 bisha September ayaa dekedda qaybteedii ballaarintu ay dhamaanaysaa waxaan rajaynaynaa in iyaduna wadaduna la dhamaato mar haddii wadadaasi noo furantana waa albaab furmayo dad isku mid ah ayaynu nahay run ahaantii waan soo dhaweynaynaa annaga lafteedu waxaan insha Allah jigjiga waan ku iman doonaa dekedahan iyo maamul ahaanba safar dhawaan rabadaanta wixii ka dambeeya macluumaadkeenu isweydaarsanayna insha Allah waxaan idin haynaa service wanaagsan oo runtii boqolkiiba boqol raali gelin doona guud ahaanba dalka Itoobiya gaar ahaan ay dawlad deegaanka Soomaalida runtii sharaf dheeraad ay noo tahay ka dawlad ahaan iyo ganacsatada oo soo dhaafay magaca markii koowaad oo sanadkii koowaad oo sanadkii insha Allah sirka biyaha dawladda Somaliland Saleebaan Cali Kore iyo hogaamiyaha wafdiga runtii shalay baan sheegay markii ku celi karmaayo waa dhalinyaro runtii anagoo rag ugu waaweyn ayaa madaxnimada ciidansanayno laakiin waxaan rabnaa wasiirada aad u yar runtii soo tusma ganacsato fara badan iyo dawladdii deegaanka golaha wasiirada qayb ka mid ah xigmaduna waxay ahayd inay isdhaafsano aqoomo ku saabsan deegaamada sidii ummaddu u wada noolaan lahayd sidii loo wada ganacsan lahaa sidii ummaddu isu fahmi lahayd dhowr jeer waxaynu nidhi dadka af Soomaaliya ku hadla isagoo wax leh wax kala leh waxna wada yeesho fikirkaa wax walaaltinimada ah waxaa kaloo dekedda Berbera sugaysa inay service u samayso 100 milyan oo qof oo Itoobiyana iyo in ka badan oo landlock dhanka kale wafdigani ka socda dawlad deegaanka Soomaalida Itoobiya ayaa ka mahad celiyay soo dhaweyntani waxaan ka mahad celinayaa sida sharafta leh loo soo dhaweeyay sida sharafta leh loo maamusay loogu soo dhaweeyay magaalada Berbera kulay ujeedadeedu ma aha socdaal xarun waa socdaal horraantii weyn intii dambe oo dhammaansan tahay in bilaha soo socda rabadaan dabadeedna ay qulqul noqdaan baa laga yaabaa sidii wadibana ay u sameyn lahaayeen research badan iyo qaab xalisku wada dhexeeyo ay dhammaan madaxdu ay intaas ku qorshayso ujeedadeedu koowaad waxay ahayd kow in aan isku xirno labada dad ay isku mid ah Cabdiraxmaan Maxamed Cige telefishinka caalamiga SAB TV magaalada xeebada Berbera.